Anigu aabbahay xabsi ayuu ku jiray waxaana la ii sheegay inta noloshiisa ka dhiman inuu xabsigaas ku qaadan doono. Wax aan sameeyo ayaan aqoon waayay, nolosha oo idil ayaana igu soo gaabatay. Waxaan go'aan ku gaaray aabbahay inaan naaska nuujiyo, ayay dhahday. Sida sawirkan idinkaga muuqato, aabbaheed oo xabsi ku jira ayayna naaska nuujinaysaa. Saaxiibka sharafta badan oo inta aanan muuqaalkan u guda gelin waxaa ku xasuusinayaa like inaad noo saarto, sidoo kale noo share gareyso si saaxiibo adigoo kale ay noogu soo biiraan. Waxaadna ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay ee Socdaal 24. Sheekadan xanuunka badan ayaa waxa ay ka dhacday dalka Faransiiska. Haweeneydan idiin muuqato waxa ay naaska nuujinaysaa aabbaheed. 2 caruur ah ayay dhashay. 2 caruurka ahaydna naaska waa ay ka goysay markii aabbaheed xabsi daa'im lagu xukumay oo la sheegay inta noloshiisa ka dhiman inuu xabsigaas uu ku qaadan doono, oo wax cunaa iyo cabitaanna aan la sii doonin, oo gaajo aan loo dili doono. Aabbihii oo sidaas ku nool oo noloshiisa sidaas tahay ayaa waxaa booliiska ay go'aansadeen in gabadhiisa ay soo booqato oo ay u imaado. Gabadha markay u imaado aad ayaa loo baari jiray si markaas loo ogaado waxa ay wado. Gabadhii cunug ayay soo xambaarsi jirtay waynu aabbaheed ayayna u imaan jirtay. Gabadhii aabbaha markay u imaado naaska ayay nuuji jirtay oo caanaha ay soo keediso ayay nuuji jirtay. Aabbihii xabsiga ayuu ku jiraa. Booliiskii aad ayay ula yaabeen, waxayna arkeen aabbihii oo aad u qurux badan oo noloshiisa aysan waxba ka dhimnayn. Markii ay arkeen aad ayay ula yaabeen, waa ay baareen baaritaankii waxna way ugu soo bixi waayeen. Gabadhii in muddo ahayd aabbaheed marka ay sidaas ay ku quudinaysay oo ay ilmaheedina caano kale u raadisay. Maalinkii dambe booliiskii waa ay ogaadeen baaritaan ay sameeyeen kadib. Booliiskiina waxaa u soo baxday in gabadhu iyo aabbaheed ay aad isku jecel yihiin. Aabbihii ayaana loo ballan qaaday in xabsiga laga sii dayi doono maadaama gabadhii aabbaheed ay aad u jeceshahay. Gabadhii aabbaheed waxay u noqotay tusaale fiican oo jaceylkii aabbanimo ay u qabtay iyo quudintii aabbihii waxa uu ku mutaystay in xabsiga laga soo daayo. Sheekada qisadan laga faa'iidaya ayaa waxay tahay in gabdhuhu mar walba ay yihiin kuwo aad u jilicsan oo qalbigoodana uu wanaagsan yahay. Gabdhuhuna ay ku fiican yihiin xagga dowladnimada iyo shaqaynta bulshada ay ku fiican yihiin. Gabadhaas hadda waxa ay tusaale u tahay gabdho badan oo ku fikirayo. Sidoo kale waxaa la sheegaa in gabdhuhu ay yihiin kuwo wanaagsan oo xilliga xaaladaha adag ku jirta ay yihiin kuwo ku baxar faki karo. Waxaana sidoo kale qisadan aan ka faa'iideynaa waxay tahay haddii gabar xitaa dhibaato ay ku geysato ama aa u geysato oo adiga oo dhib ku jira ku aragtay inay mar walba garab istaag kuu sameyn doonto. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. Waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. Inta qiso noocan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo.